waa Nursam TV Anisa Sabax oo ka soo gudbinaysa garoonka ciyaaraha لما تلاقي على الوباس بيقولوا لي روح بقى وباس هو الكيبا على المنصب على goosha saddexaad kalama keeni doonta goosha saddexaad waa su'aasha la isweydiinayo mise washqaa ku shubi doonta goosha afraad washqa kubadda waa maasatay 24 washqa kubadda hayo weer bay ku jirtaa washqo caasimada markii maxamad bay dhigatay waa socotaa lixda washqa wuu gala gudaa kubaddaas difaaca talmaan baa kubadda soo ceshay kubadda difaaca talmaan ku soo qaatay difaaca washqa qaatay lixda tobanka difaaca washqa weli kubadda wadato goobta igula sugan gudoomiyaha jahliyada Soomaaliyeed ee magaalada Oslo Maxamed Cabdiqaadir ku soo dhaw Anisa aad u mahadsantahay adiga iyo tiimkaagaba sa sheegtay ciyaartu waxay ka dhacaysaa oo ka furanta koobka Valhalla Arena oo ku yaala caasimadda magaalada caasimadda wadanka sama qabtaa okay caasimadda Oslo ay ka furmatay 26 June ayay furmatay 26 June micna gaar ay leedahay waa maalintii koowaad ama qaybtii waqooyiga ay xorriyadda qaadatay oo ay la midowday qaybta koonfureed maalinta 1 Luulyo anagoo marka maalmihii xorriyadda ku jirna waxaan xoog saarnay inaan labada maalmoodba xusas gaar ah u sameeyno Soomaalida badankooda 1 Luulyo un bay u yaqaanaan maalinta xorriyadda laakiin ma ahan labada maalmoodba taariikhdooda ay leeyihiin sidaas la adligeed ayaan waxaan bilownay inaan ururino gobollo kala duwan ee waddanka Norway waxaan la contact gareynaa kooxo kala duwan waxaan markii hore ku talagalsanayn dhammaan gobollada oo dhan inaan isku wada keenno laakiin waxaan noo suurta gashay 6 gobol oo gobollada ugu waaweyn waddankan inaan isu keenno oo ugu horeyso Oslo, Viking, Inlandna
mataqaanaa Ostfol Telemark mataqaanaa muhiimadda aan naga u danlayna waxay ahayd laba waxyaalood dhalinyarada dhexdooda inuu ka dhaco integration oo iyaga dhexdooda ay isbartaan bergen aan hilmaamay sorry hilmaa hadal kuma jiro bergen waliba dadka noogu fogaa oo meel fog ka yimid waaye waxaa marka nuxurkeenu uu ahaa inaan soo saarno iyagana dhexdooda integration ka samayno aan soona saarno xulka qaranka oo ciyaari kara kubadda cagta aad iyo aad ayaad maxamed noo mahadsan tahay muddo intee leeg bay idinku qaadatay inaad qabanqaabisaan ciyaartan quruxda badan ee dhowrka kooxood isugu keenteen muddo bil iyo bar ayaan ka shaqaynaynay wax sahlan ma aha waxaa waaye gobollo kala duwana laga imaanayaa diyaaradaha qaybtood soo qaateen kuwa tareennay soo qaateen kuwa shaqooyinkooda ay soo kaansaleen marka ma ahan wax arrin sahlan ma ahan midda kaleeto waxaan ku qabannay meel u qalanta hol aad u qurux badan ayaan ku qabannay waxaan diyaarinay koobab aad u qurux badan insha allah maalintaana waxaanu jecelnahay koobabka aad guddoonsiinaysa kooxda inaanu kaala soo qayb gallo oo Nursan TV uu kaala soo qayb galo haddii ilaahay ka dhigo yaa kula qabanqaabiyey imise qof baa tihiin group intay leeg baa tihiin adigu guddoomiye jaaliyaddaa tahay yaa kale ee kala xooga kugu darsaday maamulka jaaliyadda dabcan xubnaha jaaliyadda oo dhan qayb ayay ka qaateen waxaa qayb ka qaatay gobollada kooxaha tiim liidaradooda waxaa ka qayb qaatay xubnaha gobollada ka imaanayo dhan waxay ahayd arrin aan dhammaanteen iska wada kaashannay ayay ahayd hooyooyinku qayb bay ka qaateen qof walba boosashinka uu ka taagnaa ayuunbuu ka haayey looma kala harin aadaan ugu mahad celinaya in alle inta ka qayb qaadato dabcan idinka laftirkiina tubintiinaan ka qayb qaadasho waay aad iyo aad marka Soomaaliyeed ay leedahay marka aadan kaga mahad la isu soo la isbarbar taago oo laga wada qayb qaato wax aad u muhiim ah waa tahay maxamed intii imika aad guddoomiyaha ahayd ma markii horeysay aad qabatay barnaamijkan isboortigu mise waad sii wadaysaa haddii ilaahay ka dhigo aniso waa markii ugu horreysay ee taariikhda jaaliyadeed ama soomaalida waddankan heer levelkan oo kaleeta ah lagu cayaaro not only intaan guddoomiyaha jaaliyadda ka ahaa waxaanan u rabnaa oo hadda aan u bilownay inay sunno noqoto sanad walba la cayaaro lagu aadiyo maalinta xorriyadda 26 juun in lagu aadiyo oo si gaara loo xuso waxaan rajaynayaa anagu markaan dee dawladaha ku biirno in dhalinyaradu halka ka sii wadaan insha Allah history noqoto aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway imikana garabkayga waxa taagan magacaaga walaalaad magacaygu barada sister waxa la dhahaa Anisay Munasar Maxamuud Abdullah dabcan waxa tahay koox kamida tababarada mise runaantii waxa ahay tababaraha amba kooxda kabtankeeda intaba waxa ka nimid gobolka Viking magaalada Fredrikstad iyo Shashburg runaantii gobolkan waa nugula casuumay koobkan farxadeen noo tahay in aan runaantii ka soo qayb galno wax muhiim ah dhalinyarada wax lagu qabanayo integration lagu sameynayo lagu soo bandhigayo runaantii lagu maamuusayna maalintii maxalla xurriyadda maanta waa maalin qaali ah maalinta gobolada waqooyi ee Soomaalida ay ka qaateen xurriyadda marka ma sha Allah waa ka saabay aad iyo aad baad mahadsan tahay Nasar waan rajaynaynaa inaynu marar kale oo badan kulanno waa tahay halkan waa Nursan TV Anisa Sabax